dowladda Turkiga oo hogaamiya madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa markan doonaysa inay isku qaawiso adduunka oo ay soo bandhigto ra'yigeeda ku aadan samaysashada hubka nuclear-ka ee wax kumaada taas oo la filayo ra'yi aruurin shacabka waddankaasi laga sameeyay in durbaba ay muujisay in dowladda Ankara ay doonayso tallaabadaasi inay ku soo biirto haddaba suuragal ma tahay dalka Turkiga inuu la kulmo cawaaqib iyo dhibaatooyin u dhigma kan lagu hayo dowladda waddanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran oo hadda reer galbeedku ay aad uga walaacayaan suuragal ma tahay tallaabadaasi ka hor inta dalka Turkiga uusan ku dhawaaqin in Israa'iil ay tallaabooyin militari oo waaweyn iyo duulaan ku qaato dalka Turkiga ee uu hogaamiyo Rajab Tayyip Erdogan maxaa keenay dowladda Ankara inay hadda tallaabooyinkaasi qorsheynayso xilli dowlado fara badan oo waaweyn ay si weyn indhaha ugu hayeen tallaabooyinka isbedel kale ee dowladda Ankara ay ku dhaqaaqday 20 sano ee la soo dhaafay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan haddii dowladda isagoo madaxweyne ka ah uu qorshahaasi hindiso suuragal ma tahay gaashaanbuurta NATO oo iminka uu ka yahay waddanka labaad ee ugu askarta badan in ay kala dhaqaaqaan si u dhiganta waddanka Iran oo ay bari saaxiib dhow ahaayeen dowladda Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Trumpna ma aqbali doona tallaabooyinka la filayo inay ku dhaqaaqaan dowladda Turkiga oo hubka nuclear-ka hela waxay uga dhigan tahay Israa'iil jahan noocee ah ayay u sameynaysaa isbedelada waaweyn ee la filayo inay ka dhacaan gobolka Bariga Dhexe Turkiga waxa uu ku biirayaa dagaalka saddexaad ee adduunka dowladaha waaweyn ee isku diyaarinaya qodobkaas ayaan si gaar ah ugu eegi doonaa barnaamijkan su'aalahaasi ayaana uga jawaabi doonaa saaxiibayaal soo dhawaada si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara aad baad u mahadsantihiin madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa la qorsheynayaa in dowladdiisu ay ku dhawaaqdo in ay doonayso samaysashada hubka nuclear-ka sida ra'yi aruurin la sameeyay ay tilmaamayaan ra'yi aruurin dhawaan laga sameeyay dalka Turkiga ayaa daaha ka rogay isbedel weyn oo ku yimi aragtida dadweynaha ee ku aadan hubka nuclear-ka iyadoo aqlabiyadda dadkii la wareystay hadda taageersan yihiin in dalkooda uu samaysto hubkan arrintan ayaa jawaab u ah xiisadda sii kordhaysa ee gobolka gaar ahaan kadib weerarkii Israa'iil ee ku qaaday dowladda Iran bishii la soo dhaafay dagaalkaasi oo ahaa mid xasarad weyn oo ballaaran ka dhaliya gobolka Bariga Dhexe codbixin ay samaysay hay'adda Research Istanbul intii u dhaxaysa 1 ilaa 5 Luulyo ayaa lagu wareystay 2,000 oo qof oo ku nool dalka daafihiisa oo kala duwan natiijooyin soo baxay waxay iftiiminaysaa dareen ammaan darro ah oo sii kordhaya oo ka dhex jira muwaadiniinta dalka Turkiga kaasi oo la xiriira difaaca qaranka iyo awoodda dowladdaasi Turkigu ay u leedahay inay iska caabisho qataraha uga iman kara dalka dibaddiisa inkasta oo Turkiga uu xubin ka yahay heshiiska xakamaynta faafinta hubka nuclear-ka ee loo yaqaano NPT tan iyo sanadkii 1979 heshiiskaasi oo sharci ahaan ka mamnuucaya Ankara inay hormariso hesho ama tijaabiso hubka nuclear-ka haddana 71% dadka la wareystay ayaa aaminsan in Turkiga uu bilaabo samaysashada hubka noocan ah halka 18% oo kaliya ay ka soo horjeedaan inkasta oo dowladda Turkigu ay maalgashi ballaaran ku samaysay warshadaha difaaca sanadihii la soo dhaafay haddana kalsoonida dadweynuhu ku qabaan nidaamyada difaaca hawada ee dalka ayaa weli aad u hooseeya ku dhawaad kala bar dadkii la wareystay ayaa shaki ka muujiyay waxtarka ay yeelan karaan nidaamyada difaaca hawada ee Turkiga haddii weerar lagu soo qaado waddankaasi ka mid ah dalka labaad ee ugu askarta badan gaashaanbuurta NATO guushii dhawaan ee gantaalaha balastiga Iran ay ka gaareen in ay gudaha u galaan nidaamyada difaaca hawada casriga ah ee Israa'iil ayaa gaarsiisay khasaare la taaban karo waxna doodan ay ka dhaxdhalisay gudaha dalka Turkiga ee ku saabsan awoodaha difaaca ee dalkooda shakiga ayaa sidoo kale gaarsiisan in xulufada Turkiga sida lagu sheegay codbixinta 72% dadka la wareystay ma aaminsana in gaashaanbuurta NATO ay si wax ku ool ah u difaaci karaan Turkiga haddii la soo weeraro dareenka guud ee laga qabo qatarta dibadeed ayaa sii kordhaysa
natiijooyinkani waxay ka turjumayaan walwalka sii kordhaya ee dadweynaha xilli ay sii ballaaranayaan iskohorimaadyada gobolka bariga dhexe iyo balkaaniska, ayuu yidhi Erdi Ostrag oo ah bara ka tirsan mid ka mid ah jaamacadaha dalka Ingiriiska. dareenka guud ee ah khatarta dibadeed ee ka jirto ayaa ku kallifaysa bulshada Turkiga inay ka fiirsadaan tillaabooyinka dhanka amniga ah oo markii horeba mamnuucay oo ay ku jirto raadinta awood ishortaagi karta nuclearka. aqoon-yahankan wuxuu intaa ku daray inkasta oo ay jiraan khilaafyo siyaasadeed oo soo jireen haddana walwalka dhinaca amniga ee isa sii taraya ee uga imaanaya bulshada dalka Turkiga waddanka dibadiisa ayaa waxay noqonayaan kuwa kor u sii kacaya. si wax looga qabto walwalka degdega ah ee ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee duugoobay, Ankara waxa ay dhowaan heshiisyo la gashay dalal kale si ay u soo iibsato diyaaradaha nooca F-16 ee dalka Mareykanka iyo waliba kuwa la yiraahdo Eurofighter ee laga soo iibiyay qaar ka mid ah wadamada Yurub, taasoo xal ku meel gaar ah ilaa inta laga soo saarayo diyaaradaha jiilka shanaad ee kan, taas oo la filayo in la helo horaanta sanadka 2028. muwaadiniin badan ayaa aaminsan in Turkiga uu si weyn ugu tiirsanaan karo awoodiisa military sida uu ku waramayo aqoon-yahankaasi, isagoo sii sharaxaya wuxuu yidhi gaar ahaan maadaama wadahadallada socda ee ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee F-16 iyo F-35 ay sii kordhayaan shakiga dadweynuhu ka qabaan isku halaynta saaxiibada shisheeye ee waddanka Turkiga, kuwaas oo suuragal ka dhigi kara waddankan inay hodaan. Ankara ayaa weli samayn wax wada hadal ah ama u qaadin tallaabo muujinaysa in ay baaritaan ku samaynayso hubka nuclearka, laakiin madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu yahay nin aragtidiisu ay dheer tahay oo markasta isbedel ku samayn kara xaaladaha gobolkaasi. Turkiga ayaa hadda dhisaya warshadiisii ugu horeysay ee tamarta nuclearka ee lagu magacaabo Akkuyu, isagoo kaashanaya shirkadda laga leeyahay dalka Ruushka oo la yiraahdo Rosatom. mashruucaas oo lagu qiyaasay inuu ku kacayo $20 bilyan oo dollarka Mareykanka, wuxuuna ka koobnaan doonaa dhowr qaybood oo awood u leh isku halayn kala duwan, isla markaana soo saari karta tamar awoodeed oo ka badan 4800 megawatts, waxaana la filayaa inuu daboolo qiyaastii 10% baahida koronto ee dalka Turkiga marka uu shaqo bilaabo sanadka soo socota. Orsatug waxa uu sidoo kale xusay in shakiga baahsan ee laga qabo rabitaanka ama awoodda NATO ay ku difaacayso Turkiga oo si dhow ula xiriiro dareenka Mareykanka nacaybka ah oo qotada dheer, kaas oo weli arrin weyn oo saameyn leh ku qaabaynta aragtiyada dadweynaha ee ku aadan siyaasadda amniga iyo difaaca. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa hadda la filayaa aragtiyada dadka ay soo jeedinayaan cilmi baarisyada la xiriira inay saameyn weyn ku yeeshaan dowladda Turkiga, waxaana la filayaa haddii ay taasi dhaqan gasho inay soo kordhin karayso isbedel weyn oo xagga ammaanka ah. dalka Turkiga ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka ay sida weyn isku hayaan nidaamka Israa'iil, waxaana qaar ka mid ah khubarada iyo warbaahinta Israa'iiliyiinta dhowr jeer oo kala duwan ay ku dhawaaqeen inay suuragal tahay Turkiga oo awoodiisa ay baahdo inay ka hor imaan karto jiritaanka Israa'iil. dalalka Israa'iil ay sida gaarka indhaha ugu haysa waxaa ka mid ah Iiraan, Turkiga iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Pakistan, iyadoo dhinacyadan ay dhowr jeer oo kala duwan ay degniino isku mariyeen hawada.